وحبا مثل فيها هذه أنا ما أنا قفز وقصة الكلام شو دوينتي وأنا هذا رويني وأنا صدق يصير هنا أنا إيمانك ويقبل على المرشح كتاعي الحلقة مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية tartanka dhici doona maalmaha soo socda hadduu ay bayiraahdo barnaamijkayga siyaasadeed iyo waxqabad iyo wixii la mid ah gadaal yaan ka shaacin doona hadduu ay bayiraahdo waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto waan rabaa baaq inaan diro ku saabsan arrimaha abaaraha waxaan ognahay in abaar dheer waxaan rabaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka aan u baaqo inay gacan ka geystaan sida dadka Soomaaliyeed oo tabaalaysan midaas iyo walaasna iska dulqaado waxaan kaloo rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto aan ugu hambaliyeeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo qoysaskooda بعدما ما أنت تهاي لما يود بلدقيان سنبوردي تواتن الاستحاد كسر ورقة أساس كي هذا في البوليس الصومالية وحن وهم هتعلنا يا سيد حجر لانتا أيوه هران معلم والبوا نفط وضع سيد كان يحسلوني سأصدق أم يحسلوني نبدليو أيوه كين الحياة mar walbana waxa la rabaa inaan la iloobin aan xasuusnaano sida geesinimada leh ee shacabka ay u difaacaan waxaan rabaa oo kale inaan halkan uga faa'iideysto inaan hambaliyeeyo xildhibaanada cusub oo la soo doortay waxa bariyahan soo ifbaxayay in musharaxiin ama murashaxiin qaarkood aysan kalsooni ku qabin shacabkooda iyo kalsooniba waxaan ku boorinayaa musharaxiintaas u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay iimaansadaan shacabkooda iyo xildhibaanada la doortay kalsoonida ka raadiyaan aysan aadin dawladda shisheeye iyo wax la mid ah maxaa yeelay dalkan Soomaali waa iska leh xildhibaanadana waxaa loo doortay inay noqdaan codka Soomaaliyeed marka iyagu unbaa iska leh awoodda qofkii madax noqon lahaa ama madaxweyne ka noqon lahaa dalka dhammaan waxaan rabaa aan ku soo gabagabeynayaa inaan u hambaliyeeyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dhibaatada ay soo mareen adkaysigoodii in maanta Soomaaliya ay joogto isgoys wax la yiraahdo ama crossroad oo dalkan lagu raadinayo inuu ka yimaado isbedelkaasna waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid u shaqeeya maslaxadda ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waxna ka bedela xaaladda nabad xumada ah iyo nolol xumada dalkan ka jirta anigana waxaan aaminsanahay inaan ahay hoggaan u yimid halkan doorashadan uga qayb galaya inuu dalkan keeno nabad waarta iyo nolol wanaagsan oo qof walba oo Soomaali ah uu maxaan ku raahdaa ka faa'iideysto وما زنتي مدن والدي الجوج مية داني وشيء مية ما أنا كلا سمعنا هل واحد قدر يا باس حافظ إيه إنه يكون معنا